sharuudaha soo socda kow inuu yahay Soomaali Muslim. waxaan u malaynayaa Soomaali boqolkiiba boqol inay Muslim tahay waa aaminsanahay waana nahay, laakiin waxaa la sheegaa qaar aan ahayn inay jiraan. kuwaas ma kala noqonaynaa waaye Soomaalinimada. waxaan dhihi lahaa meeshaas Muslimka ay ku taallo Ilaahay ayagana ha ka dhiga Muslim buuxa, laakiin in laga saaro Muslimka ayaan soo jeedinayaa. mana diidani haddii lagu daraayo, laakiin kuwaan Muslimka ahayna aan u ducayno inuu Ilaahay Muslim ka dhigo, laakiin Soomaalinimadooda ay taagnaato. taasna waa soo jeedin lahaa. midda labaad in ay da'diisu ka yaraanin 30 sano, inuu dhimarkiisa buuxo etc iyo wixii kale. okay, qodobkaas wuxuu ka hor imaanayaa qodobka 14aad. okay, qodobka 14aad haddaad ila fiirisaan wuxuu leeyahay muddada xilhaynta agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisa. agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisu waxay xilka haynayaan muddo 5 sano ah. okay, waxaa laga buuxiyey wax allaale iyo wixii laga buuxin lahaa dadka abalay garaynaya shaqooyinka caadiga ah. wax kale uma soo istaagin arrinkan hadda uu gudoomiyaha ka hadlay. gudoomiyaha si fiican u sharax oo uma baahnayn hadda in meel looga laabto ma jiro, laakiin waxaan rabaa hal kelimo inaan ku daro. mararka qaarkood golahan marka uu hadlaayo iyo waxyaabaha laga hadlaayo ayaa waxaa u baahan in laga fiirsado. ma aha dimuqraadiyada golahan wax walba in looga hadlo. in loo fahmaa ma aha dimuqraadiyada la sheegaayo. maba aqoonsaniba aniga waxa la yidhaha dimuqraadiyad. dimuqraadiyad diinta islaamka dhigayso. dimuqraadiyada gaalada ma aha tan diinta islaamka ay dhigayso. horta in la fahmaa muhiim waay. dib ha loo fiiriyo oo qoon haddaan diinta loo lahayn ha la soo barto. qof kasta oo muslimna ah waxaa waajib ku ah in diintiisa u barto. waajib calaynaa waaye inaan diinta anada baran. bilxaqiiqa sharcigaa nagula soo celcelinaayo ma ilaahan idinku dhaariye gudoomiyaha wuxuu ka hadlaayay maa wax inta in la yimaado laga sheegi kara ah. miyaanan xishoonaynin horta annaga? miyaanan diin lahayn? islaam ma nihin miya? xaggeen ku abtirsannaa? yaa asal noo ah? war asalka annaga diinta waaye. diin kale ma lihin annaga. sababta loo daba taagan yahay sharcigaas wasakhda ah horta ma naloo sheegi karaa? wasakh waaye, quran waaye, sharci ma aha. haddaan idin sheegayaa wuxuu sharciga islaamka ka qabin iyo dastuurkan uu qabin lama keeni karo meeshaan, mana ogolaanayo. haddaan idin sheegaynaa sharcigaas lagu daba dhegan yahay waddan kastaba sharci iyo shuruuc uu leeyahay. annaga ma sharci gaalan ku dhaqannaa? gaalada sharcigeena inta keenaan shacabku dhaqaynaa? ruuxaan bilaahi calaykum aad maalin kasta dabada nooga wadaan maxay tahay? maxaa loo diidan yahay? maxaa loo keeni laayahay? maxay tahay waxaas? wasakh waaye, qurun waaye, sharci ma aha, shaydaan waaye, mana la keenayo inta. maxaa noo sheegaysan marka? bikulli ixtiraam mudanayaasha waa idan ixtiraamaynaa, ni ixtiraamno. maamulka annaga mas-uulka ah wax xunna intaynaan keeno diyaar uma nihin. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسحوليه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآيات إلهي من كفرنا لك ما واحد شرعنا قبل باترتين أنت ماشان كان أنه ترى هذان وايلو دي أن ليه الشرع قال هذا إنك يكون عشان قال هذا annaga gaala ma nihin. sharci gaalana inta ma keenayn annaga.
gaal ninkii ku qanacsanna gurigiisa u taga ha soo qanciya asaga ma qancinayno gaalada annaga ilaahayaan qancinaynaa diintiisaan qancinaynaa bikulli ixtiraam mudanayaasha waa idinka xishoonaynaa mas-uuliyiinaad tihiin waajib waxaa idinka saaran xildhibaanaan ahad leedahayaad xildhibaan u tahay ma shacab soomaaliyed xildhibaan u tahay mise gaal shacabkiisaad xildhibaan u tahay waayo waxaana loogu keena xumaanta badan horta barinahan ku dhaariya ma waxaana wax la sheegi karaa guddoomiya intuu ka akhrinayo waxaasaan idinkala xishoonaynaa hortiina ka sheegnee waa inoola daba taagintay maalin kasta xoolo shaydaan annagu inta ma keenayno mana ogolaan karno wax diinta looga baxaan inta ma keenayno annaga ma keenayno mana naga sugaysaan cidda aan ugu xishoonaynana ma leh war isku xishooda ha nagu kicinina dhiigga maalin kasta wax naareeda inta la soo qorqoraa waxaa lee adduunkaad diidan adduunkaad wari annaga adduun soomaaliyan leh annaga maxay tahay adduunka aad noo sheegaysaan confession gaalada waxay qabtay iyadaa qabtay annaga dadka annaga wixii dan u ahan intu keenayna annaga confessionkana waxaan dalka annaga iyo dadka annaga aan maslaxa u ahayna ma ogolaanayno naga daaya wari aan ummadda soomaaliyeed aad mas-uulka tihi markaasaa futaa wax liska gelinaad inta noo keenaysan waryaada waxaas maxay tahay wasakdaas iyo qashinkaas oo weliba aad noola daba taagan tihiin war waxaas naga daaya ilaahigana ka cabsada muslimaad tihiin qofkii muslimnimada ka baxay oo gaal naqday gaalnimadiisa ha aado qofkii muslim ahna waxaan annaga qabna inuu raaco waayo dastuurkan iyo shareecadan islaamka war dastuurkaanaan ku dhaqannaa muxuu sheegaa aaway waxaad akhrinayseen dastuurkan muxuu sheegaa muxuu sheegaa ma wax kan ka baxsanaa karti inaan inta keegno